الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تاريخ ذا كورنكيدو ومسائل aada u khatara marka dhan laga eego, oo dadyowga dambe waxay isticmaaleen farsamo ah sidii caqliyada dadka muslimiinta ah loo masixi lahaa oo taariikh badan ay leeyihiin looga tirtiri lahaa ama qaab qaldan loogu sheegi lahaa. السلطان سليمان ابن السليم ابن بايزيد ابن محمد الفاتح انت أنا نكور من مقدمة أهان وحلقية بدأتك بدينا يداودين مسلسل عربة حوق لوغو داودا ياتشرا والله هذا حريم السلطان أما القرن العظيم. مسلسل كاسي waxaa la rabaa in sultaankan aynu maanta ka warrami doonno lagaga warramo, laakiin waxaa looga warramaa si aad u liidata. waa musalsal dhammaantii naago iyo tumasho iyo khamri iyo dumar iskhiyaamaynaya ku salaysan. ninka musalsalkaa daawadaa wuxuu u arkayaa sulaymaan alqaanuuni inuu yahay cirbiidu dawla alcuhmaaniya. musalsalka waxaa qoray qof dumar ah oo fanaanada oo riwaayadaha qora oo Miraal Okai la yidhaahdo way dhimatay. gabadh taariikh shaqo ku leh maaha, laakiin mu'arikhiintii reer galbeedku iyo dadkii muslimka locolka ahaa waxay ka qorqoreen wax ka mida bay soo naqlisay iyo wax siinaariyaha ay ku qurqurxisatayba. ma aha gabadh diinku shaqo leh, bale waxay tilmaamaan barnaamijta qaarkood markii la wareysanayay waxay tidhi markaa dhinta ha lay gubo, lamase gubin. turkida marka la eego markii musalsalkaa la soo bandhigay 70,000 oo shakwo 70,000 oo dacwadood in ka badan baa loo qadimay wasaaradda ama majlis al-a'la lil-idaa'a wa telefisyooni turkiya oo la leeyahay waxaani waa xaqiiqo laga been sheegayo ee ilaa ay gaadhay inuu ka hadlo madaxweynahoodu oo yidhaahdo sulaymaankaanu naqaanay ma aha kana idinku ka warramaysaan. sulaymaanka ay saa uga warramayaan waa nin dagaalyahana oo mujaahida oo muslima oo futuuxaad badan leh oo gaalada madaxa dhulka u dhigay ilaa iyo uu leeyahay taariikhyahanka jarmal ee Helmer la yidhaahdaa كان هذا السلطان أشد خطراً علينا من صلاح الدين نفسه. صلاح الدين الأيوبي نقان قدس حريي وحنا قدر رابو ليه سليمان القانوني. أما مؤرخ هستوريان كله إنجليز كهارود الله هذا وحليه إن يوم موت السلطان السليمان كان من أيام أعياد النصارى بوليه. جيريدي نكاس مالن تودنتي waxay ka mid tahay buu leeyahay ciidahan u dabaaldegno oo ninka caynka Yurub uga baqaysay ama taariikhda inta leegle maxaa sidan loogu dhigay. aan mas'ala idin sheega markaa waxa jira taariikhyahanadu markay ka warramayaan waxay sheegaan oo la yiraahdo at-taariikh as-saghir wa at-taariikh al-kabir. dad marka aad rabto inaad masaxdo oo dad liita aad ka dhigto waxay yidhaahdaan waxaa laga warramaa taariikhu saqiirka. taariikhu saqiirku waa waxay gafafla maalan duwalka oo kale waxaa laga warramaa bay leeyihiin boqortooyada iyo dumarkii joogay iyo ragga iyo dumarka jooga jinsiga dhex maray iyo tarafka iyo kuraasidii taallay iyo khiyaamooyinka isku sameeyeen iyo wixii la dilay iyo waxaasaa laga warramaa. oo qofka taariikhda akhristaa wuxuu moodayaa ummadda taariikhdeeduba inay noocan u nahayd.
bale wuu ka yaqiiqsoonayaa inuu akhriyo. مثلا haddii maanta ingiriiska laga warramo qoyskiisa boqortooyada iyo dumarkii joogi jiray iyo rabshadihii ka dhici jiray iyo khiyaamooyinkay samayn jireen iyo isdilladay samaynayeen waxay kuuna muuqan lahayd dowlad yaroo baaba oo aan laf lahayn maca daalik uu dunidoo dhan gumaysanayay. taariikhulkabiirkuna ama taariikhda weynina waxay idhaahdaan waa dowlad ama ummaddaasi wixii injaasaad ah wax soo saare ay samaysay hadduu mid caskariya yahay hadduu mid dhaqaale yahay mid bini'aadamnimo mid cilmi mid fikri mid qaanuun mid value waxay dunida ku soo kordhiyeen oo bashariyada wixii ay u tareen. haddaba bay dhahay nimanka reer galbeed iyo taariikhyahanadooda iyo waxoodu markay caalamul islaami ka warramayaanna taariikhu saqiirkay saaraan markay tooda ka warramayaanna taariikhul kabiirkay inoo saaraan. tooda waa saynis hebel oo waxaan soo kordhiyey dowladdaasoo waxaa qabatay taasoo waxaa dhistay wixii ay qabteen bay ka warramaanee macne nolosha ku samaynayay. caalamul islaami taariikhdiisa markay ka warramayaanna wixii khiyaamo iyo dumar iyo rag istile iyo wixii la isqabsaday ee nooc ahaa bay soo tilmaamaan. xataa waxaan odhan karnaa waa masale bini aadamku uu baday inuu socdo. soomaalida qabaylkeeda dhegayso. ninku markuu qabiilka reerkooda ka warramayo intay goob guulaysteen iyo nin waayeelo caqlile intii soo martay iyo nin deeq badnaa iyo nin wax bixiye iyo nin gabyaabu kuu sheegaya. reerka kale laakiin markuu ka warramayo midna casoo beri ku jiray iyo maalin ay ceeboobeen iyo mar wax ka dhacay iyo inta meelee liidatee reerka kale buu kuu sheegaya. yacni koodana taarikh kabiirkuu ka sheegaya reerka kalena wuxuu ka sheegayaa maxay taarikh saqiirkiisa wixii gafe ay geysteen ayuu ka warramayaa. fakadalik taariikhda ragga qora waa khatar qaabkay u bandhigaanna waa khatar iyadoo waxa la sheegayaa xataa uu run yahay ayaa run la isku qalloocinaya u noqon karta. weliba taariikhul islaami dhibta ka mida waxaa ka mid ah kutubu taariikhda caamkaa markaad u noqoto inta badan kuraasida iyo boqor baa dhacay iyo bocor baa qabsaday unbay inta badan ka warramaan halka laga yaabo taariikhdii xadaaradii iyo dadkii iyo dhaqankii muslimiinta ee dhabka ahaa inaad ugu tagto kutubu taraajum iyo wax kala mid ah iyo kutubu tabaqaat iyo marka culamada laga warramayo sheekhaasi wakhtigu noolaa ardadiisii dadkii wax u baray marka laga warramayana waa caalam kale. marka taariikhu saqiirka lagu saaro kursi la isku dilay iyo nin meel qabsaday waxaad soconaysaa meeshuba waxay ahaan jirtay meel dagaaluun iyo rabshadi ka socoto. haddaba sulaymaan alqaanuuni wuxuu dhashay taariikhda hijrigii markay ahayd 900 bishii safar 6deedii baa lagu tilmaamaa. wuxuu ku dhashay magaalo la yidhaahdo Trabzon. Trabzon waa magaalo ku taalla Baxril Aswadka waxay ka soo horjeedaa waddankan uu iminka qabsaday raashinka iyo qiramka la yidhaahdo tataarkan muslimiinta ah ee raacsiisnaa dowladdan kale ee Ukraine ee uu hadda Putin qasabka ku qabsaday waxay ka mid ahayd dowladda Uthmaniya. alqiram baa la yidhaahdaa waa tataarkii ka soo horjeedkiisa waa magaalo ku taallo xeebta ah. waxa uu Aba Yazid الثاني أبيه وسليمان أبيه والسليم أووجينا وأبا يزيد الثاني بايزيد نوحى أبيه محمد الفاتح كان معروف يلا يقانه اسطنبول نكي فرطي وسليمان كان أووجي صلبات. طرابزون markuu ku dhashay waxay yidhaahdaan aabihii isagoo kitaab haya ayuu inankan u dhashay dabeetana tayamunan qoys boqortooyare way ahaayeen isagoo ka barakaysanaya u bixiyey sulaymaan. nebi sulaymaan iyo meelahaas inuu ekaado oo kale ayuu sulaymaan ula baxay. Trabzon waa magaalo qola Komnenos la odhan jiray oo caa'ila dowladihii Byzantiyiinta ahayd ay samaysteen siiba markii Istanbul ay ka qabsadeen dowladihii Laatiinku ay ka qabsadeen Byzantiyiinta nimankii la odhan jiray waxaanay ka mid tahay dhulkii uu furtay Moxamed al-Faatix. ninka Istanbul furtay ayaa magaaladanna hore u furtay.
وحها ويلك قرى لب وابهي دلي سليم إن كلام لهين hablo badan buu la walaalahaa ninka kani waxay dhahdaan wuxuu la koray wiil qaadiga madiinadu uu dhalay oo ay saaxiib ahaayeen qaadigaas oo nin caalim oo caalimudiin mutasawwif ahaan jiray oo la yiraahdo Yaxya ibn Umar Afandi waxa macallim u ahaan jiray Khayruddin Afandi nin sheekh oo caan oo la oran jiray toban jir meelaha markuu gaadhay dhaqankii ay lahaayeen waxay ahayd ilmaha boqorada marka la gudayo waxa loo dhigi jiray xaflad toban jir markuu gaadhay baa xaflad loo dhigay aabihii aad buu u danaynayay markii uu qaan gaadhay kadibna awowgii baa waxa loo weydiiyay in isna gobol loo dhiibo dhalinta markay 20 jirada ku dhadhow yihiin ayaa gobolada yaryar la geyn jiray si ay u soo tababartaan oo maamulka ugu soo tababartaan marka aabihii oo Trabzon haysta ayaa wuxuu wiilkiisa awowgii uga codsanaya inuu isna meel loo dhiibo aabihii Salim Bayazid inamadiisa yaryar buu kamid yahay ninka weyno Axmed la yiraahdo jiro soo dhigaya inuu isagu boqortooyada qabsado markay cabaar la isku celceliyay akhiran kafa meel la yiraahdo maamulkeeda loo dhiibay kafi qiram taasay ka tirsantay markaa waa meeshii koowaad Sulaymaan uu madax ka noqdo kafa markuu joogay muddo markaa aabihiina gobolka ka soo horjeeda ayuu haystaa awowgiina waa boqorka waddanka oo dhan aabihii hunguri baa galay boqortooyada siduu u qabsan lahaa isaguna dhaxal sugihii rasmiga ah ma aha aabihii ciidamuu ka haystay isagoo dhowr iyo 30 doonyood xawaalays wata ayuu u gudbay xaqii inanku gobolkii u haystay qiram gobollu isku dayay inuu isku qabsado isagii aabihii Bayazid dagaal baa dhex maray dagaalkii waa lagu soo jabiyay laakiin aabihii waxay wada socdeen inkishaariyiinta nimanka la yiraahdo raalli ahaada taariikhdii laga warramayo waxa fiican qofku inuu sawir guud haysto magacyada tan iyo magaalooyinkan aan akhri doono iyo waxaan oo dhamina waa wax wada jadiid ah midalan kafadan sheegayo imika Fiidosiya la yiraahdo waaga waxa xukumi jiray oo laga xoreeyay Janawadan Talyaaniga boqortooyo ka jirtay baa meesha xukumi jirtay oo laga xoreeyay magaalooyinka aynu sheegi dooniyo waxa soo dhameey wax idin ku cusub baa laga yaabaa inay noqdaan macrako u guras la yiraahdo aabihii lagu soo jabiyay akhiran inkishaariyiinta nimanka la yiraahdo waa dad askarinimo gaar ah ay u tababari jirtay dawladda Cuthmaaniyiinta oo aan qabaa'il lahayn ama han noqdaan adoomo yaryar oo la soo helo la xoreeyo ama han noqdaan caruur yaryar oo sidooda loo qaatay dad min caruurnimadoodii qadiyada tan waa qadiyadii ay ku soo caanbaxeen ayuubiyiinta qolo loo oran jiray marka dad yaryar oo militarinimo loo tababaro dawlad mamaalikta maqashaan 276 sanadood talinaysay waa nimankan oo kale ahaayeen waa dad loo train gareeyay askarinimo aan qabaa'il la shaqo ku lahayn iyo reerahays hayo dhan inkishaariyiintaasi waxay raaceen Salim dabeetana odaygii baa la inqalaabay Bayazid aha boqortooyadii Salim baa qabsaday Sulaymaanna dagaalada kama qayb galin gobolkiisii yara ayuu iska joogay markii uu qabsaday ayaa aabihii wuxuu dagaal la galay walaaladiisii kale ay hayeen iyo wixii oo dhan laakiin wuu guuleystay cala kulli xaal inuu wadanka qabsado inankii Sulaymaan ahaa waa loo yeedhay Istanbul baa la keenay waa la soo dhaweeyay aabihii baa hadda boqora dabeetana waxa la geeyay magaalo la yiraahdo Manisia waa Sanjaq markaad maqasho afkii Turkida hore waa wilaayaadka waa gobol nin maamulo waa magaalo u dhow Izmir magaaladan la yiraahdo odayga Bayazid loo oran jiray baana guri boqortooyo ka dhistay
inta badanna waxay ahaan jirtay dadka waliyul cahdiga noqonaya meelaha lagu sii tababaray ee dawladda ka agdhow Istanbul agteeda ah. Manisa la keenay markaa. Manisa meesha la yidhaahdo halkii hore ee kafa 3 sannadood buu xukumayay intii aabihii madaxweyne ahaana wuxuu xukumayay meesha tan. ninkani waqtiga uu dhashay Sulaymani waa markii Andalus laga soo saaray muslimiinta 1492 meelahaas laga soo saaray sina 1495 meelahaas uu dhashay. waa waqti muslimiinta galbeedka laga xoog batay dawladaha reer galbeedkuna ay xoog bateen. waqtiga waxaa jira markaa laba dawladood oo aad u xoog badan oo baxriyada leh ciidamada badda ugu tirada badan leh haysta. sideedaba waxaad ogaataa dunida taariikhdeedii dambe dawladda badda ku xoog badan ayaa ah inta badan dawladda dunida ugu xoog badan. ee Boortaqiisku ama Isbaanishku markay baxriyadoodu xoog badnayd dee ilaa iyo Maraykanka waa kuwii qabsaday gumaysanayay ilaa iyo muslimiinta ay soo jebiyeen North Africa oo dhan qabsaday. ra'su rajaa'i saalix meeshan Cape of Good Hope ka soo wareegay barigiina kan qabsaday Mombasa iyo dhulka kan oo dhan way qabsadeen ilaa iyo Muqdisho ay qabsadeen horu u sii socday Babul Mandab buu qabsaday uu ka wareegay Hormuz buu qabsaday iyo jasiiradda yar meesha ku taala India Ahmedabad gobolkii la oran jiray waa haysteen ayuu qabsaday dadka muslimiintii. Ishta waa meesha nimanka Indonesia la yiraahdo ay qabsadeen. waxay ka taliyeen badda dhammaanteed. waxay ku talagaleen inay cidhiidhiyaan wadooyinka dhaqaale ee India iyo Yurubta kale oo dhan isku xidhi jiray. Yurub markaa waxa uu caansanaa dawladdii ad-dawla al-bunduqiya banadiqa bunduqiya waa Venice magaaladan la yiraahdo. marka dawlad weyn oo Talyaaniga ka mid ah bay ahayd oo talisa. dawladda iyo Uthmaniyiinta nooc isku xidhnaa dabeetana waxay ahaan jirtay magaaladoodu meelaha ugu badan ee baac mushtarka. wixii India ka yimaada ama tariiqul xariir jidkii la oran jiray marayaan ama badda cas bay soo maraan dabeetana Masar bay yimaadaan Iskandariya yimaadaan halkaas ay ka baxaan. Boortaqiiska iyo Isbaanishku waxay ku talagaleen caalamul islaami inay go'doomiyaan oo ay ka xagga dhaqaalaha kala dagaalamaan markay Andalus iyo intaas qabsadeen ay xoogaysteen. waxay xidheen markaa khaliijka meel kasta oo laga galo ama Babul Mandab ha noqoto ama خليج العرب أو خليج الفارس meeshaasi jasiirada ku taalaha ahaato way xidheen. marka waxay noqdeen dawladaadu xoog badan isla markaa caalamul islaamina wuu burbursan yahay oo markii Andalus la qabsanayay cid u gargaarta lama helin. xagga kale waxa soo baxday Boortaqiiska iyo dawlad Safawiya oo Shiica ahayd ayaa heshiisyo wada galay xidhiidh dawlad Uthmaniya dhammaantood inay col la wada yihiin. heshiisyada ku tiri kuteena baa soo baxday Boortaqiisku inay rabaan Madiina intay qabsadaan xabaasha Nabi Maxamed inay lafaha kala baxaan ama Nabiga calayhi salaatu wasalaam ciidamo cunta inay la baxaan Nabi Maxamed jidhkiisii inay meesha ka qaataan oo inta la geeyay Yurub lagu gorgortamo Baytul Maqdis in la soo celiyo. Baytul Maqdis gacanta muslimiintu ku jira dawlad Mamalik baa haysata. marka in dib loo soo celiyo Baytul Maqdis waxay u mareen dariiqa dawlad Uthmaniya xaqan hadaynu jabin kari weyno kuwan baa jilicsan intaynu xaqan marro in la labaxo ee Nabiga calayhi salaatu wasalaam qabrigiisi. dawlad Safawiyana way kula heshiiyeen baa la sheegaa. warkaasina wuu soo baxay. odaygii dhalay Sulaymaan al-Qaanuuni dagaaladii Yurub muu bilaabin ee wuxuu u soo jeestay horta inuu caalamul islaami mideeyo dabeetana uu Boortaqiiska ka hortago. isagu go'aankaas u qaatay. kadib dagaal buu qaaday wuxuu ku qaaday labadii dawladood ee meesha ka jiray. mid waa dawladda Mamalik ee Masar haysatay. Masar uu qabsaday iyo Dimashq iyo Xalab iyo intaas oo dhan uu qabsaday.
dagaal labaad buu qaaday dawla safawiya dawla safiya wada maqashaan waa Iiraaniyiinta tan Iiraaniyiintani waagaa dawlad xooggan bay ahaayeen ilaa Georgia Armenia ilaa iyo Bahr al-Qazwayn ayay ka talinayeen asalkoodu waa nin la yiraahdo Safiyuddin al-Ardabili Ardabil magaaladan la yiraahdo waa Iiraan gobol ka mid ah Ardabil magaaladu wali waa jirtaa magaalada nin wadaado suufiyo oo joogay ayaa dariiqo sameeyay safawiya la yiraahdo suufi shaafiiciye buu ahaa madhab shaafiiciyada haysta dabeetana dariiqu sameeyay dariiqo xamaasad badan bay ahayd aad bay u faafeen way ballaadheen dariiqadii waxay qabsatay barigo dhan iyadoo madhabka ahlu sunna wali rumaysan inan waa awoowo ahaa al-Khoja Ali la yiraahdo ayaa shiica noqday dabeetana dawladii waxay isu bedeshay nin siyaasiyu noqday dawlad buu qabsaday shiicu noqday raafida 12 ku biira marka waa jaddahu al-khamis ashaah ismaaciil ka safawiga ee muslimiinta qasabka ku shiiceeyay awowgiisii shanaad buu noqonayaa markaa Safiyuddinku meeshuu qabsadeen dawlad ballaadhan bay noqotay ahlu sunnuhu laayay qasab wuxuu kaga dhigay Iiraan 5 qarni horteed muslimiin ahlu sunna bay ahaayeen inta madhabka yara shiicada labada Iiraan wuxuu ka yimi Lebanon madhabka Lebanon baa u culama ahayd Iiraan tan iminka ay cagsiga tahay dawla safawiya markay qabsatay qasab bay ku shiicaysay muslimiintii ama waa lagu dilayaa ama shiico xaggaana qasab baa lagu kiristaameeyay wixii xaggaa xigay سليم القانون سليم ninka loo yiraahdo oo ah Sulaymaan abihi reer galbeedku markay dacaayadeenayaan waxay u bixiyaan Saliim the Grim bay yiraahdaan Saliimkii caabiska ahaa nin adag buu ahaa baa la yiraahdaa Francisco waxay yiraahdaan Saliim la tribal Saliim الرهيب wuxuu bilaabay inuu caalamul islaami mideeyo marka wuxuu qabsaday مصر iyo dawla al-Mamalik oo dhan jaldarin macraka la yiraahdo ballaadha buu safawiyiintii ku jabiyay ilaa iyo caasimadoodii buu qabsaday kadibna dawladda ballaadhan intuu dagaaladan ku soo jiray Sulaymaan al-Qanuni wuxuu u diri jiray Adirna wax waliba malaynaan sharxaabay u baahdeen Adirna waxa la yiraahdaa waa magaalo ku taala qaybta Yurub ee Turkiga qayb ba jirta Yurubiyana oo Istanbul baa qaybiso badna Yurubiya badna xaqan marka gobolada Yurub oo Rumelia baa loo oran jiray Rumelia barkii dambe waxa soo hoos gali jiray Baltiiqan oo dhan yani waxa soo hoos gali jiray maxaa la yiraahdaa Balqaankan u jeeday oo dhan Montenegro iyo Serbia iyo Bosnia iyo maxaa la yiraahdaa Macedonia iyo waxa soo dhamaa soo hoos gali jiray markii dambe Rumelia qaybta Balqaanka Turkigu magaalada koowaad ee kala wadaagay gobolka xukunta Adirna la yiraahdaa si aan dagaaladii Yurubiyanku u soo guurin ayaa Sulaymaan al-Qanuni abihi wuxuu u diray intuu dagaalada xaqan ku maqan yahay inuu isaguna joogo maxay waqooyiga qaybta Yurub inuu joogo xuduudda wadanka ilaaliya xagga waqooyiga odaga Saliim al-awwal baa lagu tilmaamaa ilaa 8 sanadood meelahaas buu xukunka hayaan filaya markii dambe isagoo sii socda Adirnadii ku socda Jurlo magaalo la yiraahdo maraya ayaa ama taacuun ama sun waxba ku dhacay uu dhintay dhakhtarkiisii baa qariyay geeridiisa markaa wasiiradii iyo qura loo sheegay Bir Muhammad Basha iyo Ahmed Basha iyo Mustafa Basha saddexda wasiir baa loo sheegay dabeetana waxay go'aansadeen in la qariyo geeridiisa ilaa iyo inta uu Sulaymaan Istanbul ka tagayo ee boqortooyada ka qabsanayo waayo jeeshka al-inkishaariyiinta la yiraahdo cabsi laga qabay hadii goor boqorradu markay isbedelayaan khalkhalay sameyn jireen marka intuu boqorku ka gaadhayo caasimada in la qariyo ciidamadii cidna looma sheegin Sulaymaan aqa nin la yiraahdo la diray waxa la yiri u tag Sulaymaan u tag
u sheeg aabihii inuu dhintay istanbul la qabadhe adirnu joogay waa ka tegey istanbul buu tegey markuu maanta oo kale istanbul galay ay berriyo kale meydkii aabihiina la keenay yani markuu dawladdii la wareegaa berriyo kale meydkii aabihii la keenay oo ay la socdaan nimankii madaxda ahaana September dabayaaqadeedii baa lagu tilmaamaa adigu 30kii September meelahaas bay ahayd meeshii buu qabsaday boqor buu noqday Sulaymaan maxaynu ka sheegnaa markaa taariikhdu waa duruus aad u qaaliya laakiin waxa aad aan suurtagal u ahayn 46 sannadood buu boqor ahaa waa boqorkii ugu dheeraa dawladda Uthmaaniya waa boqorkii tobnaad marka hore Uthmaan al-awwal oo ah Uthmaan ibn Artaghar allawa ninkii sameeyay dawladda Uthmaan al-awwal marka laga soo bilaabo isagu waa boqorkii tobnaad ee dawladda Uthmaaniya waa boqorkii ugu xoog badnayd dawladdiisu waxa la tilmaamaa ninka kani 10 sano iyo dhowr bilood muddo lagu qiyaaso goob dagaal taagna 10 sannadood iyo dheeraad ayuu goob dagaal joogay cimrigiisa intii badnayd bay dhaahdaan markuu gaboobay mooyaane intii kale isaga ciidamada hogaamin jiray goob dagaal la uu taagnaa wuxuu geeriyooday isagoo goob dagaal jooga oo isbit magaalada la yiraahdo Siktivar waa magaalo ku taala Majar waa Hungary koonfurteeda magaalo ku taala qalcada isagoo xisaar ku haya ayuu geeriyooday noloshiisa intii u badnayd dagaal buu ku jiray 13 ghazwo 13 dagaal oo waaweyn oo caalami u qaaday intii waqtiga uu noolaa 13 dagaal buu qaaday oo taariikhda dunida wax badan ka bedelay waxay yiraahdaan intuu faraska fuushanaayo soconayay 48,000 oo kiiloomitir buu faraskiisa ku jiray bay yiraahdaan 48,000 oo kiiloomitir 48,000 oo kiiloomitir waa imsaad u malaynaysa dunida muxiidkeeda ma taqaanaa ninka intuu Mombasa ka baxa xagga bari u kacay galbeedka ka soo gala imsuu socdaad u malaynaysa waa 40,000 oo kiiloomitir waa 40,076 kiiloomitir meela weeyaan that means Sulaymaan al-Qaanuuni fars isagoo fuushan buu dunida ku soo wareegay weeyaan intaas goob dagaal buu taagnaa uu soconayo faraska u fuushana waxay yiraahdaan wuxuu ka taliyay oo ciidamadiisu bariya galbeedba u mareen saddexdii qaaradood ee dunida markaa la yaqaanay dunida markaasi maraykannadan inaynuguma xidhnayn Australia waxaanina wax buuran ma ahayn oo la garanayo dunidu saddex qaaradood baa markaa bini aadamku boqortooyooyin ku dagaalami jireen waa Afrika Asia iyo Yurub saddexda qaaradood ee la yaqaanaba al-caalam al-qadiim barru wa bahru dagaal buu ka galay waxa la yiraahdaa waa boqorkii muslimiinta ugu badnaa ee si dhex taaga ee qabsada qalbi Yurub bartamaheeda futuuxaadkiisa dawladdu aabihii ka dhaxlay aabihii markuu caalamul islaami dhawaa mideeyay buu dhintay intii si ugu badnayd markuu mideeyay aabihii laakiin dawladdu ka dhaxlay ilaa 6 milyan iyo badh kiiloomitir bay ahayd 6.557 square kilometers bay ahayd baa la yiraahdaa Sulaymaan al-Qaanuuni dawladda Uthmaaniya markuu ka tagayna حوالي 15 مليون أو كيلومتر به 15 مليون أو كيلومتر مربع به وحال هذا مددي ودقال كودي دقال لدو يسوقوا هقامين يهر سعودي صدح بقول يلحنا نقل عضاد يحسن مفرطة صدح بقول يلحنا قلعة يحسن تا رفيسيد يدول كي لقالي شري واقي هوري af Soomaali qalcad maxaynu ku dhahna waa saldhigyadan uu ku wareegsan yahay dhismo aan faras iyo ciditoona ka soo talaabi karin waa dhismo dheer oo magaalooyinka waaga hore lagu wareejin jiray oo la iskaga difaaco fardoolayda iyo dagaalada cidda soo qaadayso dhan magaaladu cunno ku filan haday hesho oo ay albaabka xidhaan cid walba way iska difaaci karaysi yani dhulkii caynkaas ee
qalaacdii ama xusuuntii ama dhufaysyadii la samaystay inta badanna magaalooyinka waaweyn baa lahaan jiray iyo meelaha muhiimka ah 360 ka mid ah buu furtay bay yidhaahdaan wakhtigiisii mu'arikhiintu waxay ku tilmaamaan inuu ahaa acdam almuluk dunida soo mara mid ka mid ah boqortooyinkii dunidaba soo maray kuwii ugu waaweynaa mid ka mid ah inuu ahaa waxay yidhahdaan wuxuu ka teliyay cawaasimta maanta la yaqaano caasimadaha dunida maanta la yaqaano athens sofia baghdad dimashq istanbul budapest belgrad qaahira bukharest sarajevo tiriun waxa maanta caasimad la sheegay intooda ugu badan leh ee yurubta bari iyo balkaniska ah ama caalamul islaami ah intaasuu boqor mar wada ahaa ilaa tibriis laga gaadhayo waa caasimatu safawiyiin eeraan qaybteeda waqooyi bay ku taallaa waxaa lagu tilmaamaa wakhtigiisii inay gaadhay dowladdii cuthmaaniyiintu heerarka ugu sarreeya ee dhaqaale iyo bulsheed guulihii siyaasiga uu gaadhay waxay xoojiyeen qaybta dhaqaale iyo bulsheeda waddanku u lahaa waxaa la sheegaa inuu yahay nin dib u soo nooleeyey mabaadi'i alcadli waalqaanuun sulaymaan alqaanuuni wakhtigiisii lama odhan jirin wakhtigiisii as-sultaan sulaymaan baa la odhan jiray waa dambe ay taarikhyahanadu qorayaan baa waxaa loo bixiyey ninkani qawaaniintuu jideeye cadaalad ku saabnaa daraaddeed baa loo bixiyey sulaymaan alqaanuuni reer galbeedku iyagu waxay qoraan sulaymaan the magnificent bay yidhaahdaan sulaymaankii weynaa ayaa la yidhaahdaa sulaymaan alcadiim kutuba taariikh reer galbeedku markay ka warramayaan waxaa lagu tilmaamaa saltanadiisu inuu ahaa akbar dawla wa aqwaha fi lcaalam qarnigii 16aad qarnigii 16aad dowladdii dunida ugu xoog badnayd ee ugu weynayd buu ahaa sababtuna waxay ahayd bay leeyihiin mu'asasaadka cariiqa ah xeesha dheer leh uu sameeyey iyo ciidamada nidaamsan hadday ciidamada madaafiicda yihiin hadday ciidamada lugta yihiin hadday ciidamada fardaa yihiin waxay yidhahdaan madaafiicdii ugu waaweynaa dunida markaa ugu khatarsanaa dowlad cuthmaaniya baa markaa haysatay walidaalik ay reer galbeedku waxay ku sheegeen inuu yahay the magnificent ama grand turk bay odhan jireen kabiirul atrak kii u weynaa turkida 46 sannadood baanu sultaan ahaa dhanka khilaafada marka laga eego waxay yidhahdaan xawaalay alkhaliifa 80 oo kale laakiin kuwaa hore ka kaalay dowla alcuthmaaniya cid khilaafo sheegata aabihii baa ugu horreeyey awal wuxuun bay ahayn dowla alcuthmaaniya laakiin khilaafada ayaa sheegan jiray almutawakil cala allah nin la yidhaahda baa joogay qaahira oo magacu yaal iska ahaa markii tataarku ay jebiyeen khilaafadii baqhdaad deganayd cabbaasiyiinta ciddii ka hadhay waxaa la dejiyey maxay qaahiro iyo qidis iyo dhankan bay yimaadeen dabeetana magacu yaal ahaan baa loo magacaabi jiray khaliifka laakiin waxaa meesha maamuli jiray boqorrada mamaaligta baa maamuli jiray markuu qabsaday aabihii masar ayuu qaaday kii boqortooyadii ugu dambaysay ka jirtay khaliifkii ugu dambeeyey islaamiga ee meesha joogay almutawakil cala allahi la odhan jiray markaas buu geeyey istanbul wuu uga tanaasulay bay sheegaan aabbihii baa ah markaas saliim baa ah dowla alcuthmaaniya awal rajul khaliif sheegta kuwii ka horreeyey salaatiinuun bay ahaayeen ciddii koowaad khaliifo sheegata waa saliim ninkani markaa khaliifu isagu dhaxlay sulaymaan alqaanuuni markaa isagu waa khaliifatu lmuslimiin athaani بالنسبة إلى الدولة العثمانية وخليفة المسلمين تلبات مركا لأيغو الدولة العثمانية عهدي لحيا فرطن كسنة وحكومة يودن كاسي وحيكون شيغانون يهي العصر الذهبي للدولة العثمانية بين هذا والعصر الذهبي عصر كي أما وقت كي ذهب كأها أي صامرته دولة داس waxay dhahdaan saltanadiisi waxa hunguri kaga jiray inuu dunida oo dhan qabsado
sidii ay waqtigii dambe duwalka reer Yurubka ku fakarayeen oo kale ayuu isagu ahaa marka la eego Yurubta boqorada Yurub waxay ahaayeen dad ka dambeeya boqortooyadiisii oo waxa la yiraahdaa Yurub al-Hadith ama Modern Europe iyo xuduudahan ay leedahay waxa ka qayb qaatay sameynteedii bay yiraahdaan wixii isagu geystay dagaallo 13 uu qaaday dhan walba wuu qaaday dhankan wuu soo socday ilaa iyo dhulkan xabashidu qabsaday Jabuuti qabsaday Eritrea qabsaday Soomaaliya qabtay Yemen buu qabtay Cadan iyo Ticis iyo qaybteedan hoose wuxuu qabsaday maxaa la yiraahdaa Sawaakin waa wadankan Suudaan la yiraahdaa qayb ka mid ah wuxuu xoreeyay oo Boortaqiiska ka xoreeyay منطقة loo yaqaan al-Bahr al-Ahmar suqatar uu qabsaday intaasoo dhanba Boortaqiis buu ka kiciyay ahdigiisu waa waqtigii xaqan kalena Axmed Guray uu ka dagaalamayay oo ay isku ahdi bay ahaayeen Axmed Guray iyo maxay iyo Sulaymaan al-Qaanuuni waa isku waqti wuxuu gaaray xad uu u kaco dhanka bari dabeetana dhanka bari wuxuu qabtay Cumaan buu qabtay dabeetana kanaalkaasi laga soo galo Bahar al-Arabka ee Iiraanti iyo Carabta u dhaxaysa buu qabtay jasiiradda meesha ku taala buu qabsaday al-Ahsaab uu qabtay kadibna waxa soo hoos galay Qatar Bahrain Kuwait Sacuudiga waxa soo dhanba hoostiisa yimi dawlad Safawiya wuu jabiyay Baghdad buu dib u qabsaday Tabriz buu qabsaday laba magaalo iyana kuwa gobolada sare Georgia iyo Armenia qayb ka mid uu ka qabtay caalamul islaami oo dhan intiisii ugu badnayd India muslimiinta joogtay markay Boortaqiiska ka cabanayeen isaga u cidirteen dabeetana ustul bahriya buu Masar ka amray inuu ka baxo oo Ahmedabad meesha la yiraahdo intuu tago inuu u heeliyo markuu Boortaqiisku qabsaday wadankan loo yaqaano Indonesia waxay u cidirteen isaga dabeetana cid buu u diray in laga dhiciyo Boortaqiiska meesha markay qabsadeen Isbaanishku Algeria iyo xeebaha waqooyi oo dhan cid buu soo diray wuxuu sameeyay ninkii loo yaqaanay Khayruddin Barbaroos waa gadhcase nin baa jiray badda Mediterranean-ka la yiraahdo ka talin jiray oo gadhcase la yiraahdo oo muslima oo ah hogaamiyihii usqulka bahriga ah ay leedahay dawladda Uthmaaniya qaraasinada badjiifka dhulkan badda dadka ku dhaca badna burcadbadeed tira badnayd caalamku burcadbadeed waaga waxay ahayd waxa ugu caansan ee la sameeyo oo dawladaha Yurub cidii doon yar samaysan kartaa intay doon samaysato ayuunba badaha la tagi jiro dadka la boobi jiray dabeetana si badda loo nabad geliyo Khayruddin Barbaroos baa loo soo diray ilaa iyo Algeria qabtay Libya qabsaday Tunisia qayba ugu badan buu qabtay Algeria qabtay Isbaanishkii buu meesha ka eriyay waxa dhacday markaa way iska hor imanayaan dawladihii markaa dunida ugu xoog badnaa مثلا يوروب marka waxa u xoog badan آل هابسبرغ boqortooyinkii Habsburg waa maqasheen baan u maqlaynaya waa boqortooyo cariiqa xeel dheer boqortooyinkii ugu dheeraay Yurub ka taliya kamida asalkooduna waa namsaawiyiin namsa wadankan Australia la yiraahday deganaan jireen waxa jira nin kamid ah boqortooyada oo Sulaymaan markuu 1520 meesha qabsanayay bil kadib mise bil ka hor meelahaasi ayaa isna madax laga dhigay waa ninka loo yaqaano Charles ama Carlos ama Carl ama Charles Khan afafka reer Yurub qolaba si u qortaa waa Charles the Fifth wuxuu dhaxlay dhowr boqortooyo kow nin Al Habsburg weeyaan boqortooyadii namsuuleeyay
islaanu hooyo ay yidhaahdaan way waalatay majnuunatu qashtaala la yidhaahdana habartii muslimiinta ka soo saartay andalus ayaa dhashay boqortooyadii hooyadiina wuu dhaxlay oo markaa Spain oo boqortooyinka ugu waaweyn ahaa buu boqor u noqday wuxuu kaloo dhaxlay awowgii xagga aabbaha buu ka dhaxlay boqortooyadii Germany-na wuu dhaxlay wuxuu kaloo farsamo ku soo helay inuu helo boqortooyadii la odhan jiray al-Imbaraatoriya al-Muqaddasa al-Imbaraatoriya al-Muqaddasa Yurub boobku nin quru u ogolaa inuu imbaraator magacaa sheegto dabeetana waa ninka boobkuna taageerayo talyaanigana caasimadda ka talinaya odayga Macmillan odayga Jarmalka haysan jiray awowgii ahaan jiray Francisca ninkii madaxweynaha ka ahaa France waa la odhan jiray bay ku loolameen meeshuu qabsaday cala kulli xaal waa nin markaa 4-5 wadan boqortooyooyinkood wada hoos yimaadaan Charles-kii shanaad baa la yidhaahdaa Francisca boqortooyada iyo boqortooyadaasaa loo lamayay kadibna waxaa dhacay in dagaal la dhex mareen dagaaladaasi waxay keeneen marka horeba dawladda tan al-Habsburg iyo dawladda Uthmaniya waa labada boqortooyo ee loolanka ku jiri jiray laakiin markay tani timi waxa soo baxay dawladda Faransiiska iyo inay col noqdeen nimankii la odhan jiray al-Habsburgaasi oo uu hogaaminaya ninkaasi Carlos la yidhaahdaa Carlos-kii shanaad dagaal baa dhex maray dabeetana waa la qabtay markii la qabtayna waa la xidhay dagaalkii baa lagu qabtay François-gii koowaad markii la qabtayna waxaa lagu xidhay meesha loo yaqaano Madrid ayaa la keenay Madrid markii la keenay ayuu wuxuu u dirtay waa maxbuus boqorkii Francis wuxuu u diranayaa inuu badbaadiyo dawladda Uthmaniya oo wuxuu leeyahay nin baa si xun ii galay waa la xidhay adigaana boqorkii dunida ka talin jiray xabsiga ayaa laga soo daayay hooyadii oo naa'ibad u ahayd oo Francisca markaa xukumaysa waraaq soo dirtay islaanta waraaqdeedii waa tan waxay leedahay muddan sugayay inankayga xidhan anigoo inuu rajaynaya inuu bini aadamnimo eega shaaralkaan laakiin may dhicin rajadayadiina way gaabatay sidaa awgeed waxaan ka codsanaynaa bay leeyahay fa innii altamis min jalaalatikum wa cadamatikum bisifa khaasa bian tatafadaluu biidhaari fakhaamatikum bikhalaasi ibni wa inqaadih min qabdati dulmi caduwina وذلك بعظمتكم وجلالتكم المؤيدة والمصدق عليها من العالم هذا بقرك فرنسيس دون بسودين كره هذا بقرك الدنيا وين هذا هي جلالة هذا وحنو قاعد صرنا بقرك يجيب محبوسين تسوديسو بقرك فرنسيس كحدنا بسنا ورقد درية وحلي إلى حضرة حاكم وسلطان البلاد والممالك من أنحاء العالم المعمورة waxaan waraaqda u qorayaa buu leeyahay boqorka iyo taliyaha ka taliya dunida inta la degan yahay baa ninka madaxda u ah as-sultaan al-mu'azzam wal-khaqan al-mufakham alladhi huwa malaadu jamiic al-madhlumin buu leeyahay boqorka ah dunida inta dulmani ninka ay xaqiisa u cararta buu leeyahay a'radu ala hadratikum ma fi al-qalb waxa naftayda ku jiraan ku soo bandhigaya oo waa maxay Ferdinand marka Ferdinand waa shaaralka walaalkii oo Majar Hungary ka talinaya Ferdinand oo malik Majara marka weerarteen shaaralkaana annagu naga argoostay buu leeyahay annaguna weeraray boqorka marka idinku weerarteen bukan annaga naga argoostay dabeetana maxbuus baanahay fadligaaga iyo waxtarkaagu baan sugaa buu leeyahay قياس فرانس وكاثوليكا هو قامسة بقرطوين كي واوين كمدا
oo boqorkeeda maxbuuska waa boqorka kale uu waraaq u dirayo Istanbul oo safiir dhan la dirayo oo waraaqda loo dhiibayo oo hooyadiina waraaq soo qorayso oo safiirintu la lugeeyo loo geynayo Istanbul si uu boqorada u sii daayo فرانسيسكا سفير كي كسعدي مركو ينمو وحو يدي الهجوم البري والبحري ضد كارل الخامس سينقذ الملك الأسير وإلا فإن كارل الخامس ستزداد قوته ويشتد صاعده بالمعاهدة التي سيععدها معه الملكان حليه هي الملكان هدي أنا بقر كاوير كو قادم بولي بدء يبري بله حداد كو قاده بقر كيجي ولا سود دينيه haddii kale waxa dhacaysa bay leeyeen boqorkayga uu xabsistay inuu jabo oo mucaahado iskala galo oo Yurub oo dhamayso ka raacdo ee dantu aday kugu jirta ay ka gaadhbuulay wuxuu ugu jawaabay Sulaymaan al-Qaanuuni wuxuu ugu jawaabay kow waraaqdu waxay ku qorantay marka hore cinwaanka madaxtinimo uu sheeganayo ana sultaan as-salaatiin kabiir al-muluk ana alladhi atawajj al-muluk ظل الله في الأرض أنا سلطان البحر الأبيض والبحر الأسود والروملي والأناضول وقارمان والروم ودو القادر وديار بكر وكردستان وأذربيجان ودمشق وحلب ومصر ومكة والمدينة والقدس وجميع ديار العرب واليمن وحشيغان يا أنت وحكومة دونيده مركو الشيكتي كدب أيو حقري من السلطان سليمان خان ابن السلطان سليم خان ابن السلطان بايزيد خان إلى فرانسيس ملك ولاية فرنسا ملك ولاية نك فرانسيس أردن حكومة وحلقة دقيقة يا معي ملك ولاية فرنسا أبو لي حو صاقري وأنا سوق على يبوي وركي فرنجباي إرجعت صادرته فرنجباي لا يداهده risaaladii qorayd iyo tii afkaba ahayd wuu noo keenay buu leeyahay waana naloo sheegay cadowgiinu siduu kuu galay iyo inaad muxaasir tahay waanan fahmay inaad u baahan tahay kaalmadayda iyo inaan kuu gargaaro waxaasoo dhan hortaydu ka sheegay buu yidhi waanan fahmay warkaagii ee adiga mid baan kuu sheegayaa buu yidhi wax weyn maaha buu yidhi in boqorrada la xidhaaye horta murugada iyo niyad jabka iska ilaali buu leeyahay ma waa la xidhay wax laga calaacala maaha buu leeyo ninka calaacale falaa taxzan walaa tahtam faina aabaa'i alkiraam buu markaa leeyahay waajdaadi alcidaam nawara allahu maraaqidahum lam yakunuu khaaliina min alxarb liajli fatxi albilaad wanaxnu aydan saalikuuna calaa طariiqihim وفي كل وقت نفتح البلاد والقلاع الصعبة الحصينة وخيولنا ليلا ونهارا مسروجة وسيوفنا مسلولة فالحق سبحانه وتعالى ييسر الخير بإرادته ومشيئته وأما الأحوال والأخبار الأخرى فسيبلغكم بها رسولكم وكوي لي هي waxaan kuu sheegayaa aabayaashaydii sharafta lahaa iyo awowyadaydii waaweynaa ilaahay xabaalahooda ha nuuriye dunida waa furanayeen anna waxaan kuu sheegayaa buu leeyahay sidii faraska iyagu inuu kooraysan yahay seeftayaduna u baxsan tahay ilaaha weyn baana khayrka fudaydiya buu yidhi wixii ware hoosana waxa kuu sheegi doona buu yidhi rasuulkaaga wixii ware hoosana ergeygaad soo diratay ayaa kuu sheegi doona buu leeyahay yacni waxay tilmaamaysaa salaatiinta yurub ayaa ahaa kuwa u geeya maxaa la yidhaahdaa kuwa u geeya jisyada kuwa u geeya markii maalan madaxnimada la saaraya isaga markii uu boqortooyada qabsanayay waxay yimi boqorradii dunida qaybo ka mid ah waayo dee sultaankii dunida ugu weynaabaa la caleema saaraya waxaa yimi ninkii madaxda u ahaa meesha la yidhaahdo ragusa waa magaalo ku taalla sicily isqaliya meeshan la yidhaahdo waxaa yimi kii raasheenka waxaa yimi kii bunduqiya
salaatiin badan baa yimi waxay u yimaadeen litahni'ah boqorkan weyne dee ninka dunida ka taliya ee madaxnimada loo inay tahniye u sameeyaan iyo inay mucaahadaad heshiisyo talab heshiisyaday soo qorteen waa maxay raaguusa qolada la yidhahdaa way timo waxay yidhaahdeen waxoogaa hubana waanu u baahanay dakhiira inaad naga iibiso cashuuraha qaarna naga dhaaf bay leeyihin markaanu dekedahaaga nimaadno iyaga wuxuu ku yidhi hubka laydinka iibin maayo laakiin waa laydin siinayaa cashuur dhaafka waa laydin siinayaa soo imika maraykanka inta la tago kontaraagyana lama soo saxeexdo waxoogaa hubana naga iibin lama yidhaahdo oo marna ma yidhaahda idinka iibin maayo marna waa idinka iibinayaa sidii oo kale weeyaan waxay leeyahay cashuuraha qaarna naga dhaaf hubna naga iibi wuxuu u oggolaaday qolada inuu cashuuraha qayb ka dhaafo laakiin hub laydinka iibin maayo waxaa yimi safiirkii raashiya isagu wuxuu leeyahay nimankan qiramka la yidhaahdaanu khaatiga taaganay qiramka waa tataarkan waa meeshaan iminka uu qabsaday ninkani ayaanu khaatiga taaganay kuwaana nagala hadal mucaahadana nala gal heshiisna nala gal wuxuu yidhi wax heshiis aan idinla gelayaa ma jiro laakiin kuwa maalmadaaya waan odhanayaa kuwaas inay maalmo idin daayaan waa oggolaanayaa laakiin mucaahada ma jirta iska taga idinkuna waxaa yimi albunduqiya bunduqiyadu waa venisia magaaladan la yidhaahdo bunduqiya qoladii haysatay waxay dalbanayaan iyana mucaahadaadkii hore in loo cusboonaysiiyo marka hore way ammaaneen boqorka aad baanu ugu qanacsannay bay leeyiin boqortaydaad iyo waxaad waddo oo dhan waxaanu rabnaa heshiisyadoodii iyaga dan kalu lahaa waayo markaa wuxuu diyaarinayay duulimaad aad u ballaadhan oo yurub ku qaado aluhaasbergeedii iyo majariyiintuu duulimaad ku waday saa daraaddeed wuxuu rabay bunduqiyada tan inuu ka saaro xilfi wadaagga qolada inaanay gelin iyaga mucaahadu la galay mucaahadada waraaqdii inta la qaadaa waxaa laga akhriyey majlisu shuyuukh ay leedahay meeshaasi 1522 abril 8 soddon bandi ama soddon qodob bay mucaahadadu ka koobantay ka koowaad tijaarada in xorriyad laga dhigoo la oggolaado nabaddana la sugo ka labaad safiir inaad noo oggolaato inaanu istanbuul keensanno oo weliba 3 sannadoodba maraanu kaa beddelno safiirku safiir daa'ima maaha every 3 years in la beddelo wax allaaliya wixii kaa soo baxsada inaanu soo celinno dadka badda dhibtu ku haleesho inaan wax dhiba loo geysanin wixii dhinta ama mutahamiina soo yaaca in laysu celiyo nimanka banaadiqadii ama dowladdiinnaasi waddanka istanbuul gudaheeda inaydan waddanka turkiga gudihiisa inaydan socon karin ilaa warqad dhaqdhaqaaq safiirku idin siiya mooyaane waddanka gudihiisa warqadda dhaqdhaqaaqa ee safiirka ayuunbaa ka qaadan kartaan waxay codsadeen north africa intaan ay muslimiintu xukunto in loo oggolaado inay la baac mushtarayn karaan waxay aqbaleen wixii doona tijaare ay leeyihiin istanbuul inta la keena in la baadho marka hore waxay sido la ogaado waxa ay sido waxay aqbaleen 5,000 ilaa 10,000 oo dahaba dawqiya dahabiya ah oo jizya ah inay sanad kasta ka bixiyaan labada jasiiradood ee qubrus iyo zantana dawladda cuthmaaniya loo keeno mucaahadad soddon bandi ka kooban buu qoladan la aqbalay waayo bay yidhaheen boqorku wuxuu u baahnaa dagaalada uu qaadaya inaanay qoladani qayb ka noqonin oo ka soo qayb gelin waxaan leenahay markaa boqortooyadu ninkani xukumayay wuxuu ahaa boqorka aynu odhan karno dunida ninkii ugu boqortooyo ballaadhaaba wakhtigaasi ahaa oo boqortooyooyinkii wakhtigiisa la noolaa waxaa ka mid ah imberatorka karol alkhamis la yidhaahdo oo arshadoq waa boqortooyada ka talisan namsa ahaa imberatoriya almuqadasana isagu dhaxlay iyo Spain imberatoriyadeedii waxaa ka mid ahaa walaalkii waxaa ka mid ahaa boqortooyooyinkii faransiiska François koowaad iyo Henrygii labaad
waxaa ka mid ahaa boqortooyadii ingiriiska henrigii sideedaad qaysarkii ruumaan qaysarkii ruushiya caalamulislaami marka la eego boqortooyinka yarare jira waa shaah طهماسب shaah طهماسبku ismaaciil safawigii oo odaygii hore saliim uu jabiyey inankiisii weeyaan iyo hamayun albaburi waa ninkii xukumayay markaa indiya dowla almaghuuliya ka soo hadhay baaburku soomaydan maqalimka masaajid had iyo goor la isku hayo ay dumiyaan oo indiya ku yaallo ay leeyihiin macbad ha loo bedelo hindidu ay ku doodayso waa hamayunkana aabbihii ninka dhisay baaburiga la sheegaya waa kaa aabbihii hamayun albaburiy waxaa ka mid ah akbar shaahi oo ibnu hamayunkaasi markuu dhintaya waxaa soo boqorra oo dunida ka jiray marka la barbar dhigo sulaymaan alqaanuuni waxay ahayn dowlada yaryar ee la ilaaliyo mu'arrikhii qarnigii 16aad ee muslimka ahaa sheekhii la odhan jiray jalaal zaada mustafa shalabi markuu sulaymaan alqaanuuni ka warramayay wuxuu yidhi innahu zubdatu aali cuhmaan buu yidhi dowla alcuhmaaniya zubdadeedii muceedu ninkan buu ahaa buu yidhi 3 shay baanu ku caanbaxay buu yidhi alcadaala oo dadka u cadaalad sameeyo iyo ximaayatu shacbi wasacyu calaa masaalixihim shacabka ilaalintiisa iyo masaalixdooda guud inuu dhowro iyo sifatu lfaatixi alcaalamiy inuu ahaa nin furasho badan waxay dhahaan sulaymaan alqaanuuni wuxuu ahaa nin gabyaaya oo gabayga ku fiican wuxuu ahaa nin luqada carbeed iyo luqada beershiya iyo luqada atraagta siba lahja tataariya iyo turkigiisiiba afartaa luqaba nin si fiican u yaqaana buu ahaa bay yidhaahdaan waa kuwa yidhaha gabayadiisa caanka ay sheegaan waxaa ka mid ah gabay uu leeyahy markay tarjameen wuxuu ka mid ah ina sijaadatan takfi suufiyayn ithnayni walakina alcaalama kulluhu laa yakfi limalikayni buu yidhi hal sijaayada laba wadaadoo suufiyaa waa iskaga filantahay buu yidhi laakiin dunidoo dhammi 200 kuma filla buu leeyahay gabay uu tirinayo yacni caalama siyaasi hunguriga yaalla iyo caalama zuhdi inta deeqi karta buu tilmaamayay cahdigiisii baa la qoray qaanuunkii ugu badnaa ee waddanku ilaa iyo dowla alcuhmaaniya ay dhacaysay ay ku dhaqmayeen qaanuunkiisu wuxuu ka koobnaa baa la yidhaha fataawi alculamaa walidaalika qisaska cajiibka ay ka sheegaan waxaa ka mid ah markuu dhimanayey ayuu yidhi sanduuqa ha layla aaso sheekh alislaamkii ahaa mufti dowla ayaa wuxuu yidhi sanduuqa armay wax qiimo leh ku jiraan ha la furo ilaan in hadday mujawharaad iyo wax wanaagsan ku jiraan in xabaal la geliyo maahe sanduuqa aan ogaana buu yidhi waxa ku jira ha la furo maydkiisi iyo meesha yaalla sanduuqii la furay sanduuqii waxaa loogu tegey wixii uu sheekhulislaamku fatwo siiyey oo dhan oo qoraala buu ku sitaa ilaahay baan la hortegayaa buu yidhi wixii aan dhigay inaa idinku fatwooteen oo ay tahay waxay yidhahdaan marka qawaaniintuu dhigay inta ugu badnayd waxay ahayd bay yidhaahdaan qawaaniin ku saabsiisan waxaa lagu tilmaamaa ninka kani inuu caan ku ahaa awqaafta iyo waxyaabaha khayriga ah wuxuu caan ku ahaa dhismayaasha caankee maanta loo daawasho tage ku yaalla waa ninkii dhisay maalan masjid sulaymaan alqaanuuni waa maqashaanin badan oo masaajidda ugu caansan ee marka la tago istanbul la daawado ah isagaa dhisay jaamacaddii kulliyaadkii la socday isagaa dhisay masjid saliim isagaa dhammaystiray bayt ulqudus dib buu tarmiim ugu wada sameeyey maka waxbuu ka dhisay makiya madiina wuxuu u sameeyey khadamaad cusub buu u sameeyey jawaamicda caamka jaamican weyn ee ku yaalla maxaa la yidhaahdaa baqdaad alimaam alacdam jaamiciisa isagaa dhisay cabdilqaadir jaylaani jaamiciisa isagaa dhisay waxaasoo dhan markaynu eegno inta aan idiin sheegay waa cumuuman muqtatafaad ka mida wixiisii laakiin taariikhdiisii kama warramin waayo taariikhdiisa dagaalladiisoo qudha haddaan ka warramo dee waa 13 dagaal oo cawaasimta dunida ugu caansan ku furtay belgrad isagaa furtay
budapest isagaa furtay bucharest yani cawaasimta dunida maanta la yaqaano waa ninkii dagaalada ku furtay walidalik maynan ka warramin taariikhdiisii laakiin waxaynu ka warrannay dawla alcuthmaaniya oo cahdigiisii maamulayay simaadka caamka ay lahayd wakhtigiina wuu dhammaaday halkaasaynu ku joojin wallahu aclam billahi tawfiiq